ujeedada shirkan jaraa'id waxay tahay inaan warbixin kooban ka bixiyo xaaladda guud ee bani'aadanimo ee dalka gaar ahaan xaaladda iyo baahida ka jirto laba magaalo oo kala ah magaalada Salaxley iyo magaalada Afgooy inaan baaq u diro hay'adaha si ay u dardargeliyaan caawinta dadka haddaan ku horeeyo Salaxley roobab xoogan oo dabeelo wata ayaa dhawaan ku dhuftay magaalada Salaxley ee gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya iyo tuulooyinka u dhow waxay sababeen khasaare hanti iyo burbur ku yimid kabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada dhibaatada waxay saameysay dadkii ku nool magaalada oo u badan bulshada inteeda nugul sida haweenka caruurta iyo dadka da'da ah roobabka dabeelaha wata waxay burbur baahsan gaarsiiyeen kaabayaasha bulshada sida wadooyinka guryaha isgaarsiinta iyo goobaha caafimaad ee magaalada waxa dhibaatada ay baabi'isay xoolo iyo dhul beereed aad u badan dadka ay saameynta gaartay waxay qabaan baahi gargaar oo ah guud ah baahida asaasiga ah sida cuntada adeega caafimaadka iyo hoyga shelterka waxa sidoo kale ay u baahan yihiin in la howlgalo si loo celiyo kaabayaasha muhiimka loona dayactirsa ay xaalad caadi ugu soo noqoto waxaan ugu baaqay hay'adaha samafalka ka shaqeeya maxal yiraahdaa dhinaca waqooyi degmada Salaxley si degdeg ah ee u gurmadaan xaalad bini'aadam aad u liita ayaa meeshaas ka jiro inay wax ka qabtaan si degdeg ah dhinaca kale waxa maalinta Sabtida aniga iyo wafdi kale aan gaarnay magaalada Afgooy oo sida la ogyahay in ay saameysay fatahaada webiga waxaan soo indhaynay dhammaan meelaha ay webiga ku fatahay magaalada waxa magaalada aad u muuqato saameyn fatahaada waxa jiro culays dhinaca adeega caafimaad waxaanu mahad celinayaa degmada oo shaqo fiican ka qabtay waxaase wali ku sii baaqeynaa in la dardargeliyo adeega caafimaad ee degmada maasantiin